waxaa maanta saaka maamulka gobolka Puntland lagu toogtay laba ka mid ah raggii kufsaday Caaisha Ilyas oo maxkamadda Puntland ay dil ku xukuntay. Aabaha dhalay gabadhii yareed ee Caaisha oo warbaahinta la hadlay kadib markii saaka la qisaasay laba ka mid ah saddexdii xukmane ee kiiska lagu helay ayaa ka warbixiyay sababta loo reebay ninka saddexaad. Aaba Ilyas Aadan ayaa sheegay in ninka dib loo dhigay qisaastiisu uu yahay dambiile balse muddo 10 cisho ah dib loo dhigay kiiskiisa si baaritaan iyo hubin loogu sameeyo. sidoo kale Aaba Ilyas waxa uu sheegay in codsi isaga ka yimid dib loogu dhigay fulinta xukunka ku dhacay Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame balse uusan jirin go'aan maxkamadeed. aad buu fiican yahay Soomaaliyeedna waa u mahadinayaa dadkii dambigaas galay Caaisha Ilyas Aadan ka galay waa la toogtay laba ninna waa dambeeya oo 10 cisho ayuu xirnaanaya baaris baa lagu jiraa kaas baaristaas haddii DNA la qaado kale waa arkayna haddii wada hadal u yimaadana waa arkayna kiiskan waxaa laga baranayaa cashar xoog leh gabdhaha Soomaaliyeedna waa badbaadahayaan una dhacay kiiskan ummadda Soomaaliyeedna waa u sheegaya giduu Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baan anaan qisaastay waana ku farxsanahay ninkii saddexaad waa dib u dhigay 10 cisho dib loo dhigay waana dambiilo ah codsi baa jiray xagga maartay dadka ah iyo annaka aana la hubinayaa 10 cisho codsiga waxa wada dhibay aniga iyo dad iyaga ka tirsan baa wada dhibnay in la hubiyo ninkaas waa annaga xageeyna dambiilo ah 10 cishaana la baaraya nimankii Caaisha dilay waa wada qaani daris baan ahayn waan wada hadalnay xataa way saafinay afis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha aakhirama baa war jiraa baan ku yiri tiirkaana la geeyay waana la dilay oday goobjoog waan ahaa hataa markay dhinteen dhunta iyo gacanta waa ka taabtay DNA-gu abiyo hooya wada dhalay laakiin maxaa ku jira falkii gabadha ku dhex jira ninkaas oo kufsiga ku dhex jira laftigiisa macaankiisi baa ku jira shaawadiisi baa ku jirta dhiigiisi baa ku jira hadduu la falgalay waa la heli doonaa qisaastaan annaga fushanay dawladdu waxay tiri fushada la yiri shariica islaamiga ragga la toogtay oo lagu kala magacaabo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed ayaa saaka ururtii la geeyay fagaara ku yaala magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland halkaasi oo lagu qisaasay ragga dilka lagu xukumay oo tiradoodu gaaraysay 3 ayaa waxaa dib loo dhigay mid ka mid ah raggaasi waxaana la filayaa in faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan hay'adaha garsoorka ee Puntland. raggani ayaa 25 bishii Febraayo ee sanadkii horeetay 2019 magaalada Gaalkacyo ku kufsaday Caaisha Ilyas oo xilligaasi jirtay 12 sano waxaana arintaasi ay hadalhayn weyn ka abuurtay guud ahaan Soomaaliya. Caaisha oo markii la kufsaday kadib la dilay ayaa meedkeeda laga helay afafka hore ee gurigooda waxaana falkaasi uu dhaliyay caro aad u ballaaran. waa markii ugu horeysay ee gudaha Soomaaliya lagu dilo rag kufsi geystay waxaana inta badan maamulada lagu eedeyn jiray inaysan tilaabo ka dadka lagu haysto eedeymaha ah inay kufsi kula kaceen dumarka. hay'adda xuquuqda aadanaha ayaa in muddo ah dalbanaysay in Caaisha ay hesho cadaalad waxayna mas'uuliyiinta Puntland ay horay u ballan qaadeen in dadkii ka dambeeyay dilka Caaisha cadaalad la marsiin doono.